kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa janaalka Kashka Fashion barnaamijkana waxaan la socodsiinayaa anigoo Kashka Fashion ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta dahsoon iyo siyaasadda baraha bulshada barnaamijkeena maanta waxaa ku qaadaa dhigi doona alfanaan Khadar Keyo Maxamed Khadar Ibrahim Khadar Keyo ومحمد خضر إبراهيم كيو وحو دشي هوراتميي سغاشمادكا وحو كسو هانا قاداي وقت فيعني وايو قروح بدن فانكا وحو كسو بيرا markuu jiray da'da 20 isagoo kala kulmay waayo qurux badan waa nin jecel bulshada Soomaaliyeed alfanaan Keyo bulshada badana way jecel yihiin isagana wuu jecel yahay balse had iyo jeer wuxuu jecel yahay inuu rasmi ama magac u noqdo fanka Soomaaliyeed isagoo waligiis ku hamin jiray inuu horumar ka sameeyo fanka Soomaaliyeed Keyo wuxuu dhowr jeer la guddoonsiiyay bilado tilmaamaya balandoorka fanaanimada alfanaan Keyo yaraantiisa wuxuu jeclaa inuu fanka horumar ka sameeyo Keyo wuxuu calanka Muqdisho uga babaday kadib markuu soo qaaday heestii gabdhaha Soomaaliyeed isagoo heestaas ka helay shacbiyad aad iyo aad u far badan Keyo markaas wuxuu ogaaday inuu yahay nin talent leh Keyo markaas wuxuu ogaaday inuu yahay nin hore u socon kara Keyo markaas wuxuu ogaaday inuu muujin karo guulihiisa Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed guduudana quruxda badan gabdhiyo waa gacaaladeen guduudana quruxda badan gabdhiyo waa gacaaladeen waxayna ku garyihiin deegaankood uga tageen waxayna ku garyihiin deegaankood uga tageen garashada hidaha iyo dhaqashada gaarinimo garceelisna aan lahayn hoy hoy garceelisna aan lahayn Keyo isagoo la guddoonsiiyay bilado aad iyo aad u fara badan ayaa markii ugu dambeysay Muqdisho waxaa lagu guddoonsiiyay bilada fanaanimo isagoo ka waramaya dareenkiisana wuxuu ku jawaabay marka hore dhamaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed markii xigta gaar ahaan xafladan quruxda badan dadka soo abaabulay dhamaantooda ayagoo isku duuban waxaa ku faraxsanayaa caawa kale in ay tahay habeen la xasuusto ama habeen qurux badan waxaan kale aan ayaguna aad iyo aad ugu mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay magacan Keyo ama heerkan caawa isoo istaajiyeen dhamaantooda ayagoona kala reebeen isku duuban abwaanin iyo muushishino abwaan dal iyo dibad joogaba abwaan hadii ay tahay muusishin dal iyo dibad joogaba intaba waxaan leeyahay waa mahadsantiin intii ka soo qayb qaadatay magaca Keyo waxaan kale aad iyo aad ayaguna aan u salaamayaa ama aan aad caawo farxadeeda aan la qaybsanayaa shacabkayga Soomaaliyeed meel walba ayagana ay joogaan dunida daafaheeda balse wuxuu xaalku halka marayay Keyo wuxuu u ambabaxay dhankaasi Nairobi isagoo u socday inuu soo qanciyo shacabkiisa ku dhaqan Kenya Keyo kadib wuxuu soo qaaday hees aad iyo aad u macaan isagoo ku soo qaaday caasimadda Kenya ee Nairobi badanaa heesihiisu waxay u badan yihiin kuwo mirahoodu aad iyo aad u macaan yihiin isagoo had iyo jeer ku qanciya bulshadiisa iyo taageerayaashiisa
inay dhageystaan heesihiisa. Keyo waqtiyada u dambeysay wuxuu ku guda jiray inuu soo bandhigo horumar aad iyo aad u baaxad weyn isagoo ku tala jira inuu ka bedelo fanka Soomaaliyeed waxyaalo aad iyo aad u badan. الفنان محمد خضر إبراهيم كيو وانين يجعليهين بلشدة الصومالية بدنكود isagoo dhalinyarta yararka ah ku qanciya inuu galgacalay wanaag u muujiyo. Keyo waanin la jecel yahay isagoo nu jecel yahay bulshadiisa balse waxa laga codsanayaa fanaaniinta qaar inay ku dadaan Alfanaan Khadar Keyo oo ka muujiyo guulo la taaban karo fanka Soomaaliyeed. الفنان كيو kuma howlana fanka Soomaaliyeed kaliya balse waxa lagu tilmaamaa inuu yahay mucjisada kubadda cagta isagoo naadiga master weyn kaga fadhiya boss weyn naadiga u dheelo isagoo laga jecel yahay naadiga maalintuu kulankaas uu sandeelana naadigu warwar weyn dareemo. Keyo markuu uu la kulmo kooxda kale wuxuu ku noqdaa miisiga kubadda cagta balse Keyo waa nin kubadiisu aad iyo aad u fadhido lagana jecel yahay dhanka isboortiga. بودكاست وقعت مركله شايفين الله صاع قدر والله ما يصير صورة قلن لكن ما يصير صورة قلن مركله قرعان قدر يا إلهي قدر aan ka soo gudubno barnaamijka maanta intaas ayuu noogu ekaa balse waxaan la soo siinayna insha Allah taala barnaamijkii Shiran Leekin ee lagu tartamay shirgareynta ayaa xadkiisa dhaafay. waxaan isku daynaa insha Allah taala inaan soo dhigno linkiga hoose ama shaashada kore ee fiidiyogan hadda daawanaysaan lambarkaas ayaad qoran doontaan waana save gareysan doontaan idinku ku soo diri doono screenshot sawirada ku qaadeen waayo barnaamijka xadkiisa waa jabiyay balse waxa isku day doonaa inaan tirino codantiina aanay tixgelino annaguna cidna oo ahnan oo Ilaahay naga ogyahay waxaan ku tala jirnaa qofkii markaas guusha qaada inuu xoolihiisa hantidiisa xaq u heli doono waayo wixii balan la qaado waa la qaataa waqtiga waayo wax kasta ku bari doonaan waa inoo iyo barnaamijka xiga waa Baxda Kashka Fashion oo isku duuban oo idin leh isma dhaafno boqortooyo hadaaratan muuqaal ka xiiso badan fadlan subscribe saar waayo maalin kasta video cusub ayaan soo dhigaa oo xiiso leh. barnaamijka waxaan la socodsiinayay anigoo Kashka Fashion intaan kan mid lamid ku kulmi doono nabadina.